halkani daawadayaal shalay hadda ayuu kale waxay ahayd mid camiran balse maanta waxay isu bedeshay sidan aad arkaysaan waa suuqii idaacadda ku dhaganaa ee ka tirsanaa suuqa weyn ee Gobonimo waa suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda magaalada Hargeysa dhammaantii waa shuf beelay suuqani aan hadda taaganahay ee idaacadda la jaarka madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo wafdi ka tirsan xukuumaddiisa ayaa halkani soo booqday isla markaana soo indheeyay bal sida xaaladdu ay tahay sidoo kale mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada xubno dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa iyaguna halkan yimid bismillaah waxa la yiraahdaa Luul Ismaaciil Cige waxaan reerku ka gubtay meherada waxa lahaa odayga lahaa anaga lahayn meherada kismaatig bay ahayd kadibna anagu xalay markii waqtiyadii la hurday bay dabku kacay gurigaani joognay markii uu dabku kacay waxaanu mid meheradii oo gubatay intaas ka soo hadhay laga soo saaray deemka inta gubashada laga soo saaray weeyaan inta kalena kaasi ku shifeeshay taweydin ka arkaya alxamdulillah umad baan la qabnaa umadaas oo dhan baa gubatay ka waxa weeyaan de wixii ilaahay qadaray u dhacaya alxamdulillah xiriir ma jiraan markaad eegto wadadu siday ahayd iyo waxyaabaha loo aanaynayo dabka waa wallahi de wax aana ma badhageysanin sababtoo ah xalay gurigeyga anagu joogaanu soo baxnay hadaanu soo baxnayna cid isdagadegeynaysa iyo wax la isku eedeynay ma jirin qof walba argagixisa qabsatay dab baa kacay nin walba de wixii uu qaadi karay uu qaaday wixii meherada aan iman maxay ahaydaan de soo gaadhin ee aan kolkii iyo dabku qabsaday mid waxba kala ma bixin wixii aan dabku soo gaadhin meherada waa laga guray anagu markii aanu nimid dabku uu gaadhin meherada uu haystay markii la baqtiyay intan saaka laga soo hoos guray maxaa aana waxaan isleenay wax aanu aadano nimka isleenay waxaas wallahi dabkaasi ka kacay ma garanayna ilaahu ba xaqiiqada og waa gartay wadooyinku way xidhnaayeen si ciidamada dibdibisku ay dhowr jeer ku celceliyeen bal ka waran wadooyinka xidhaayeen aad iyo aad wadooyinku way xidhnaayeen dadku maxay ahayd daway dadku waa dad iska danyaray iska aynu badnaayeen dadku way ku iibsanayeen ku qanacsanayeen hoosta iskaga soo yarwada jireen marka de waxba dhacayana qofna ma filayn horta waxda ilaahay ku maqan cidna kuma filayso inay wax dhacayeen laakiin caqabada halka u timid dabka loo dami waayay waxay ahayd wadada xidhan darteed Axmed Xuseen Cabdilaahi jaamac baa la yiraahdaa meherada halkaas ku beegnay qaybta ciid baa jiingadaha ciid lagu kuusay halkaas meherada ku beegnay xalay sideedii iyo barkii habeenimo iyadoo nabad qaba ayaanu xidhnay waan rawaxnay xaafadii baan walba xaafadiis buu tagay kadibna anugu waa seexday 12 iyo barkii baan ayaan ku war helay dabdamiska qayladiisii kadib waa maxaa dhacay soo dibadda soo baxay xaafadu waxay ku dhowday suuqay ku dhowday idaacada u dhowday kadib waxaan arkay qiiq iyo olol fara badan suuqii haysta gabigiisiiba waa soo cararay waxaas bal meheradii wuxuu ku gaadho kadib halkaas ka soo galay suuqa meheradeedu markaa halkaas ku beegnay saddex meherado wax kaga xigay baa fayooba meherada afraad baa gubinaysay kadib waxaas bal wax ka saar kartaa ka saar baasi bacdi baan soo gooyay albaabkii baan soo furay sidaa marka u galay meesha nabad qabto gudahayga wax dambe ka baxayn ayaan galay wax ka saar baanaysa sidaa markaan u galay saliinkii iyo jiinkadii ayaa igu soo gubinaya in yaroo alaabaan gacanta la helay alaabtii marka qaadin alaabtii way ku dhaalashay gacantayda ku dhaalashay labada gacmood way gubtay alaabtii sidee intii xogaa garamaana ayaa ku dhaalaalayba waa sii daayay waan cararay marka naqaskuna way qabtay ololkii iyo qiiqii wasanka afka bay galay kadib naqasku markuu qabtay waa xagaas aanu cararay marka laamida gaadhay baan naqas iga soo baxan hawadii helay inta kale naqas uu taagnaa marka wax laga qaban karayo wax laga qaadan karayo mid ma ahayn waxa meheradii halka ku yeelay shalay hadda shalay xilligaas oo kale aanu haysanay waaweynaa ee amirnaa maanta oo ilaahay saa ka dhigay ilaahay markii hore nasiin baa marna siinay alxamdulillah rabbil caalamiin marka saas ay arrintu Axmed Cusmaan oo ka mid ah dadkii ganacsatada ah suuqan ku gubtay maanta magaalada Hargeysa ku shaqaysanayay adigu qadar ilaahay baan ugu dhacay alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay waxaan ka soo kaban doono insha Allah bismillaahi kariim intii la mid ah ayadana meherad baan halka ku haystay xalay 12 habeenimo anigoo hurda umbalay la soo hadlay suuqu ololaya soo carar markii aan imidna meeshii dam baan imid adigu qadar ilaahay baan dhacay miran bad ka tagtay meel maran waan imidoon imika dul taaganayo meeshii maran وحال الحمد لله رب العالمين قدرك إلهي بان يا داعي ما شاء الله ده إلهي بان إن شاء الله جزاك الله خير من الله ينعم. أنا جبت مني مياه لعبت جبتهم بس. موس بدكي. ترى ما لسه وريتهم أنت من هذا. بس واحد ترى. نبغى أعتقد أنا لا تعول أنا لا نقول. موس
كي كاريوكي كارون كما هي لو بتيو خليه كاريوكي وقلت واي فيستي انت سوون دورنا يحتاج ما دولة محط فرينا دولتنا خير ما ندري نبادي يده وحينا نقع الهاي دولة ونقع ونشرون درنا يجون دعينا وخير قبل الله وصليب والله magacayga hani aadan axmed baa la idhaa meheradii aabbahay bay ku jirtay meheradaha xaggaa horaa markuu dabku baxay markaa uun kacay ayaabaanu nimi laakiin wax dee nafle waan ka gaari weyne wallahi dad badan baana ku shufbeelay dee ilaahay baa abdal khayr qaba weydiisanaynaa haddii la idhaa meherada maxaa lagu iibinaya meherada dhar iyo waxa lagu iibinayay kabo wax allaali wax ka hadhayna ma jiraan waa shufbeesha laakiin ilaahay baa khayr qaba weydiisanaynaa haddii la idhaa aad weyn baa ka dhacday gaar ahaan dadkii walaalada ee ku waxyeeloobay halkaasi wallaahi walaaladay waxaan leeyahay caawid khayr qaba Allah siiyo gaar ahaan imiga haddii aad soo tiri kooba ama ma garanaysaa kulley waxaan mahad gaar u celinaa ciidanka qaranka ciidanka gaar ahaan ciidanka degmada jamhuuriyadda Soomaaliland oon leeyahay aad iyo aad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay ilaahay caawid khayr qaba Allah siiyo teeda kale mid kalena ku dar laa waxaan lahaa ciidamada degmada waxaan lahaa degmo kasta iyo gobol kasta in laga sameeyo oo ma garanaysaa meelo u gaara meelahaasi meel laga soo galo ayaa la waayey gaar ahaan waddooyinkana aad baa loogu baahanyay waddadii laga saaro marka waxaan lahaa walaaladay caawid khayr qaba Allah siiyo gaar ahaan degmada 16 Juun oon leeyahay dadkii walaalaha iyaga ahaa halka wax ku ayoolay ilaahay caawid khayr qaba insha Allah siiyo marka waxaan leeyahay kulley dadka walaalaheena waxaan la qabnaa insha Allah marka wixii waxa ka dambeeyna insha Allah inaga digtoonaado yaan rajaynaynaa insha Allah dhibaatada meesha ka dhacday wadniga nala jooga anigu halkan uu hudheelkaygu ahaa labadan meelood ee naga horeysan la meelood yar bacadna baan ku lahayn wixiiba way ku daayeen alxamdulillah saddexdii meelood way ku daayeen alxamdulillah rabbil caalamiin maanta haddii dadkii nool yahay ilaahay uma ka sugaynaa farash khayr qaba bismillaahi kariim laakiin masiibo weyn baa dhacday ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay naga cawilo markii dabkani baxay ama dhacay waxaan ku sugnaa xaafadda waxa la ii soo sheegay 12 barkii baa la ii soo sheegay eedna gaari baan soo kaxaysanay dabku wuxuu bilaabmay sidaan ku wado 12 ama 10 barkii meelahaas ayuu dabku qarxay guri dhinaca naga xigay ayuu ka qarxay inaan halka naga xigtay oo imika guriga saddexaad noqonaysa oo halkaa jawaanadu kaaga muuqdaan inanta ku xigtay ayuu dabku ka qarxay 12 wax yar labo maartay dabkaasi dhacay والله واحد دلالي إذا كنت تدبس كان دلالي هذه الدلالة دي عندي كان لسود منا من بقولي كنت إلى قبل نمو قبل كده بادري وكدي لهي إن شاء الله وحصل لعي وحكر قبل لهي لك الرجال الله يضد كي ما أنت بارك تشتري قلبتي نكر تكان بوزنا كراكتي ده كويس وأول رئيس هذا لما تكان بالك كويس جينا كيسو هنا كيسو أبو صار مغلي وحبابا قاني ومعنا كل عيب مقتهر إن شاء الله وحن رجالنا بدل الخير قبل رجالنا بسم الله الكريم هذه أزمان السلام عليكم خسارة هذه بلاد بنايا نقول عاي لما مهروت بنو كلاي سنانية أنا كيغو مدري بشارة وين به مدري بعدل وين بوها معمود به يعني العكسية دي هو كاسعته $3 هاي على أبوي كلامنا تبشارة إلا $2 تكلمنا إلا $2 به هاي لا تكاسين إلا فرقم به هذا وهمسين شركة تكاسو سعره به هذا ورقة كاسو دقي markaad ilaahay wax roolkeeda soo dhigo dad kale oo nala mid ah badanna way jireen saas khasaaro ballaaran ba ka dhacay meesha marka laga yimaado masiibadan timaaday wadada waxa la ii sheegay in gaadiidka meel ay soo maraan ay waayeen bal wadooyinkii halka ku yaala ka warsay hay wadooyinkii markii ay dadamiska iyo booyadaha biyuhu yimaadeen xagga laamida markay ka soo galeen meel ay mareen bay waayeen dadkii baa xitaa meel laga maran la waayay xagga sariibada markay jiraan ka soo galana baabuurtii wagaale tuumbadii baa la soo jiiday waxay badbaadisay iyo dadkii jiingadaha kala jarayay bakhaarada laamida u jeeda ayay badbaadisay dabku soo gaadho sidaa u soo hadheeyay marka wixii kaloo dhan u soo leefay أسعارتي كلا إلا سريبتي وصول لفين إلا هدوليد إلا بعضلي إلا بسرينك وصول لفين إلا ورفافين توعيك السكية وصول لفين طبيعتنا وحاي بدباديين بخاردي راسينكو يالي
ayaabay badbaadiyeen markii dawladda demiskii iyo cagafyadii oo wixii kale ay dib isugu aaseen biyihii iyo tuumbooyinkiina lala hooseeco adigu wixii gubtada dib laysugu baktiyey bakhaaradaasna sidaasay ku badbaadeen laamida markii dambe waxay ka soo galeen xagga warfaafinta xaggaasay biyihii iyo cagafyadii lagaga keenay sidaasuu warkaasi ku dhammaystiran yahay halkaa waxaa dhinaca midig iga taagan Salmaan Haybe oo ka mid ah wariyaasha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta xalay goobjoog ahaa markii uu dabku halka ka kacayay Salmaan waan soo dhaweynaynaa bal waxaad nooga warantaa wixii aad goobjoogka u ahayd walaalo aad baan idin salaamayaa horta masiibo sahlan baa inagu dhacday waa la xakameeyey maasha allah marka hore waxaan uga tacsanaynaa oo aynu la tiiraanyeysanahay dadkeennii danyarta ahaa ee ku waxyooloobay ee ganacsigooda aan ku baaba'ay ayaanu leenahay ilaahay bedel khayr qaba ha idin siiyo mar labaad qaliilla waad og tahay goobtan waa goobtii sariibadda ama idaacadda inkastoo wariyaashu waxaa la isku qaldayn lahayn suuqa gobonimo laakiin suuqa gobonimo ahayna waa suuqa idaacadda sariibadda idaacadda ee dhanka bari ka xigtay dabku markii uu kacay goobaha dhexu ka kacay marka meel cooja oo aad aan loo geli karayn bay ahayd nasiib wanaag shaqaale wasaaradda warfaafinta ka mid ahaa soo gurmaday markii la yidhi idaacaddii dabba ka kacay markaan soo galnay waxaan arnay meeshan oo aad iyo aad u gubanaysa dabkuna wuu fidayey sad la socotana deerkii idaacadda waxaa xidhay dee meheradaha faraha badan leh dadabisku meel ay ka soo galaan bay waayeen waxaa jaanis noqotay inay ka soo galaan albaabka weyn idaacaddii reer Hargeysa kadibna soolartaad arkaysaan ayay soo dhex galeen qaybta shishe ee dhanka waqooyi ayay markaas cagaftu ay soo martay marka waanu tilmaannay waxaan ku halkaa ka dumiya ilaa mahadii cagaftii dawladda hoose gurmadkii dendemiska iyo dhammaan bahloodannadii dawladda hoose ciidamada kala duwan ee qalabka sida hadday tahay militariga asluubta bilayska iyo halwadannadii kale wasaaradda warfaafinta dhammaan cidka u hadhay ma jirin badbaadintaasi waayo waxaan ugu tusaale qaadanay suuqii weynaa waaheen oo khasaare badan gaarsiiyey sidaa awgeed qof kastaaba hurdadu ka soo kacay waxay hawl wada leeyahay hawl qof gaar leeyahay ma ahayn waxay hawl in wada saaran in qof kastaaba halkiisa wixii uu qaban karayo uu qabto ilaahay mahadii dabka waa la xakameeyey waxaan aad ugu faraxsanahay in halwadannada naftohorayaasha ee ciidanka damiska qaranka Soomaaliland ay dabka isku tuurayeen cagafyadaasi ayaa halkaa dumiyey annaguna waxaanu ka qayb qaadanaynaa tilmaanta iyo inaanu markaasi aanu qayb ka qaadano maadaama iyagu aanay kala garanayn oo halka xadhig yaallo iyo halka qalab noo yaallo iyo halka marayaan aanay kala garanayn wasaaradda warfaafinta iyo ciidankeena biliiska joogaba waxayna ka qayb qaadanayeen sidii ay markaas u tilmaami lahaayeen waxaanu la qaban lahaayeen markaa walaal aad iyo aad ayaad mahadsantihiin maasha allah dabkiina waa la xakameeyey warbaahinta kala duwan aad baan ugu mahadnaqayaa sida xalay ay goob kasta iyo meel kastaba ay uga soo gurmadeen isla markaana ay u gaarsiiyeen meel kasta oo laga daawanayo dacwada dunida oo markiiba dhammaanba meel kastoo Soomaali joogto la soo wada hadlayay oo laha mar idaacadii baa gubatay mar gobonimo baa gubatay mar qof kastaaba uu naxsanaa qof kastaaba wuxuu ka warsanaa dhibaatadii gaadhay suuqii waaheen xilli adag baa lagu jiraa ganacsiguna waa halboolayaasha nolosha bulshada iyo isku socodka bulshada marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu ilaahay uu nagu bedelo wax ka khayr badan isla markaana suuq inuu noqdo suuq kala habaysan oo bulshada iyo dadka ku ganacsadaana ay ku waaye qaataan oo ku tusaale qaataan waxyaabaha ka dhacay saasa wala ku leeyahay waa markii saddexaad ee mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa uu dab ka kaco isla markaana uu khasaare baaxad leh u gaaro weli waxay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland gaar ahaan ciidanka debdemisku ay ku hawlan yihiin sidii haraaga halkani iyo sidoo kale xashiishka uga guri lahaayeen iyagoo kaashanaya dawladda hoose caasimadda Hargeysa Maxamed Cabdi Qaranle QTV Hargeysa